السلام عليكم أصحاب السودو هذا. مدحوينه دونالد ترامب waa kii bartiisa Truth Social-ka ku sheegay in uu la kulmayo maayarka cusub ama duqa magaalada cusub ee New York oo afartii bishan la doortay Zoran Kwame Mamdani. Kulankii waa u dhacay aqalka Oval Office-ka. Trump kulan gooniyo albaabada u xiran yihiin yeesheen isaga iyo maayarka cusub Mamdani. Kadibna shir jaraa'id ayay wada qabteen aqalka Oval Office-ka iyadoo waliba Trumpna kursigiisa uu ku fadhiyo Mamdanina uu gadaal ka taagan yahay. laakiin ninkii Trump maanta geesinimo uu muujiyay oo uu hambaliyay. Mamdani wuxuu yiri ninkan olole cajiib ah ayuu soo ololeeyay waliba dad smart iyo caqli badanna waa uu ka guuleystay ka mid yahay gudoomiyihii hore ee gobolkaasi ninka la yiraahdo Andrew Cuomo. marka wuxuu arrintaasi waa ugu mahad celinayaa sidii aan maleynayay ma aysan noqon yiri ninkan wax fara badan oo aananba u maleynaynin inaan ka midaysanahay ayaan ka midaysanahay yiri markii ay kulmeen kadib ayaa ninkii Trump uu saas leeyahay. marka oo u hambaliyay hambaliyaan leeyahay yiri waxyaabahan ka midaysana waxa ka mid ah yiri in dadka guryo la'aanta guryo loo raadiyo. New York waxaan ognahay mid ka mid ah magaalooyinka ugu nolosha qaalisan ay ku jirtaa wadanka Mareykanka. hal qol oo kaliya oo yar oo hal qof oo seexan karo ayaa laga yaabaa $2,500 oo kira ah in laga bixiyo. marka arrinta markii uu ololeynayay ninkan Mamdani wuxuu yiri basas free ah ayaan dadka u sameyn doonaa, dukaamo ay maamulka oo rangarayana waa u sameyn doonaa oo dadku si raqiis ah ay cuntada uga iibsan karaan. marka Trump ninkii uu hambaliyay isaguna wuu aqbalay wuxuu yiri madaxweynaha waan kaga mahad celinayaa kulanka aqbalaadiisa soo dhaweynta aqalka cad uu sameysay iyo waliba kulanka aan wada yeelanay oo kulan muhiim ah. Trumpna dana fara badan ayuu ka leeyahay magaalada New York waxaan ognahay xitaa ganacsiyo ayuu ku leeyahay inkastoo xilligii maxkamadii ay ku socotay laga mamnuucay 3 sano inuusan wax ganacsiga ururkiisa uusan ka sameyn karin wiilashiisana min 2 sano laga ganaaxay. laakiin waxa uu doonayaa arrimaha immigration-ka dadka soo galootiga oo New York dad fara badan gobolka Texas gudoomiyaha gobolka dadkii basaska uu soo saari jiray ayaa ku sugan welina howlgala laga sameynin. ninkan hadda xilka ka dagaya Eric Adams waa kuwii isku afkartay oo dacwadihii federaalka ay ku socday inta laga cafiyay la yiri nala shaqeey wax rabaa dadkaas inaan masaafurin. marka danahaasi ayuu Trump ka leeyahay dadkaasi sidii loo masaafurin lahaa. marka wali xilka looma dhaarin ninkan Mamdani ah oo 1 bisha January ee sanadka cusub ee 2026 la dhaarin doona. hadda Eric Adams ayaa bil iyo 10 maalmood xilkiisa uga harsan yahay inuu dhameystirmo. laakiin markii su'aalaha la gaaray oo Trump su'aashii ugu horeysay la weydiiyay waxay ahayd ninkan hore socialist ayaad ugu magacaawday sidoo kalena bal ka waran waxa uu yiri haddii Netanyahu uu yimaado New York waan xiraya. horta qaybta labaad ee su'aasha oo xiritaanka Netanyahu ma aanan ka wada hadlin uu yiri laakiin arrinta kale oo socialist anigaba waa leegu yeeri jiro yiri marka muddo ayaan siinayna inuu isbedelo waa laga yaabaa waqti aan siinayna yiri arrintaasina waa arrin iska caadi ah. Trump waxaan ognahay xitaa xilligii Allah doorashada uu ku jiray ninka Mamdani inuu yiri waa in la masaafuriyaa sharciga laga laabtaa waa in la xiraa waxyaabaha soo idil haddana waa kuwaas maanta aqalka cad ay ku wada kulmaan. marka siyaasaddu waxa la yiri ay saaxiib joogto ah ma lahan laakiin dan joogto ah ayay leedahay. marka sida muuqata daraf fara badan oo Trump ka leeyahay oo dhinaca masaafurinta dadka sharci darrada ah magaalada New York. marka sidaas darteed inuu la kulmay oo yiri warniyahow wixii dhacay way dhaceen waad guuleysatay hambaliye bal aan wada shaqeyno sidaas ayuu u muuqataa. marka waan arki doonaa marka la dhaariyo xilka la wareego siga dowladda federaalka oo Trump hogaaminayo iyo maayarka magaalada New York ay sidoo kalena ay wada shaqeeyaan waxyaabaha kale soo kordho stay tuned.